قصومين عكسوين قفنابا قصبكي فرحة هذا خاص وليه waxaan arkayaa adiga inaad murugsan tahay waxaad ii sheegaysa miyaa jirana run ahaantii sawdaa way i khiyaantay aniga kalsoonnida faraha badnaa aan ku qabayna waa iiga dhaawacday runtii intaasoo sano ayaan aniga iyada isla soo shaqaynayna wax badanna waan isla soo marnay laakiin ma aqaan sababta ay maanta waxaasoo dhan u samaysay waayo adiga ma hubtaane xitaa fiiraha shirkadda lagu magacaabayo waraaqadahena u gudbin jirtay adiga waa ogeed soo maahana saaxiibadaada ayay ahayd ayadana zaa'id ayay kuu jecleed waxaasoo idilna jacaylka ayaa ka keenayo waxaa loo baahnaa adiga inaad iska cafiso mararka qaar jacaylka waddo khaldan ayuu kuu hogaaminayaa laakiin ha iska cafisa ayay ahayd waxaasi way dhammaadeen lagama yaabo inaan cafiyo adiga waa daalantaa ii seexo haa elif waa aan daalanahay inaan wada seexana diyaar ma u tahay saaka subaxnimo ayaad baxdee saaka fuliye ayaa wada kulmayna anigana inaa ku kiciyo waan diiday micnaha shaqa miyaana waxaa waaye iliif meesha waan joognaa macaantadeedii madageeno waaye anigaa ku soo wacaya xabiibi waayahay macaantadeedii adig dulqaad yar xitaa ma muujin kartid miyaana maxaa kaa qaldan gudaha aan galna yaaqay hawshan aan soo dhammaystirno nakeen waxay ahaataba soo bax subax wanaagsan subax la mid ah xal shaqadaa ku soo daada soo maahan haa xogoo xaalado degdeg ah ayaa nagu soo baxay oo shirkadda dhexdeeda suudaan waa aan burinay go'aan fiican ayaad qaadatay naagsa awal ba aniga maba ka helin kolay iyada waraaqado oo annaga nagu saabsan ayay shirkad kale u gudbinaysay sidaas ayaannu ku burinay wiilkayga waan ku dhala isoo raac ma jirto naagsa mar horeta ay arkay inay naag xun tahay waan buriye adaan iigu soo celi ka xaaxaaba hooy hadda waxaasoo dhan way dhammaadeen ee waxyaabihii joogta ma soo xasuusatay in adigii sheeg maya ma xasuustay aniga waayahay dhibaato ma lahan hooy fiiri aabba keligiisa ayuu soconayaa maanta waaw aabba waan faraxsanahay runtii maasha allah braaw aabba soo fadhiiso run ahaantii wax walboo dhacaya gabadhan yaasmiin ayaa sababe dhammaantiinna waxaa loo baahanyaa gabadhan inaad umahad celisaan iga raali noqdo sidai haddaba hadirtaan waan sii baxayaa macsalaama marwa yaasmiin waad ku mahadsan tahay adiga ayaa mudan xabiibi dhibaato miyaa ku haysato doctor riif ma kuu wacayaan isaga ayaa xaaladaada ogaanaye carruurtay fiirihe hooyadiina waa iga fikiraysaa xaaskayga aniga waan fiicanahay waad ii jeeddaa soo maaha maasha allah cuntada ma la cuno waayahay aan bilaabna bal obbaa waa ku salaamay waa kaa qaadi gabartee waa ku salaamay waa kaa qaadi hoo qabso amahadsan tahay meeshaan ku wareegayaa yaa
adeer waa ku salaamay meeshaa ma soo fadhiisan karaane adiga fiyooraha ma jeceshahayne aniga magacaygii liif ayaa la dhahaa adiga magacaana fiyoorahan adigaa kuugu talgala halkaanaana kuu dhigay وكذا أنا جاي هاي واي هاي معناته جوكسان 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 يا وانا العشاء يا لدها واي aan baxno marwa Aisha haddii aad ifahmi karto waxaan ka codsanaa wajigayga inaad soo fiiriso ilifay waad aragtaa soo mahana wax isbedelay ma lahan doctorka aan la hadalno adigu xabad ha isdaalin gabartan Caasha leeyahay waa maskiin xabad ma aragta xabad ma maqashaan ku dhawaa ka baa xabad ma maqash macna aqoonadu leedahay miyaane xawa aqaan waa gabarta mugeedo hore saas ma ahayn moogta laakiin markay ma hantamid cudurka ku siisiyaad maskiinta dhala xasuusaheedu waa wayse dibna waa ugu soo naqawaay waxa ku dhacaan ku anigu xitaa waa ka xumaadha yaa aad iyo aad aan uga xumahay ruhaantii xitaa qof soo booqanaya ma lahan miyaan ii sheeg gabarteeda dhalaxoo faryaal la leeyahay taasaa mug walba soo booqata iyada jawaana fahmaysa sababtoo ah habarteed waa walleen maaha mar kastana eraya dareen lahay kula warantaa xusuusteedana waa u soo naqee waana wada farxsan yihiin waayahay ayada maxaa ku dhacay gabarteedii saan wax kuugu sheegahaya dadkan waxay ahaayeen dad faraxsan oo lacag laho meel iska degno nabadooda qaba laakiin waxay igu tarayahay naag xumaa kuu soo biirta mihiyo shaydaamada kadibna noloshoo dhammee ka qasta balaaya qabtada markaas kadib ninkaadi xitaa waa isdilay faryaa xilligaas muluqay ahayd waa yareed xabad kale ma ogeyn dhibaatada naagtaas xun ay u geysata darteedu inuu isku dilay ninka naagtaas yaabay damoo bal maskiintan xaaladday ku sugan tahay iyadoo dhan saasay ku soo aruurta damoo hal mug waxaad ii sheegi rabtid soodaa shaqo fara badanaa ii taal shirna waan geli rabaa firaad wax walba wuu ogaaday anigana wuu i qabtay haye aad iyo aadaan uga xumahay maxaad rabtaa inaan kuu sameeyo maxaa rabtaa maxaa la dhahaa aniga shaqo ayaan u baahanahay qofyay marka ugu horreysa caadi iska dhigyaaqay haddii hawsha aad qabanaysa dadkii ay kugu ogaadeen shaqo miyaan ku siinaya hore ayaan kugu sheegay taxadirkaaga ha bataan ku yidhi sidee micnaha naamala socotaa adiga dartaada ayaa aniga saaxiibkayga u qiyaanay nolosheedoo dhan waa burburtay shaqadeedina adiga dartaa ayaan ku waayey shaqo in aan ku siiyo lagama yaabo ayaan ku dhahay teeda kale qof adigoo kalea
oo khiyaano badan shaqo sideen ku siinaya dadka intaasoo sana aad u soo shaqaynaysa ayaad dhabarka ka qaniinta aniga miyaad ii taaqtaaqay mar shaqo kuuma haayo haddii ay jiraan waxyaabo kaloo aniga ii quseeyo oo aan si saa'ida u xiisanaya waqti xadirkan waa ila wadaagi kartaa hadda ma haysaa ma haysid soo ma haddii aadan waxba ii haynin albaabka halkaasuu kaa xigaya ka bax ilif aniga hadalkayga dhan waad maqli weysay soomaha naagtaas ayaad raacday waadna ka daba baxday adigina adii ogolaada waa diidda soo maahan sideen kugu ogolan karaa war naagtaas waa mas dhibaatadeed ayay wadataa sidee marka xabiib aniga waxay gaaraya ma lahan adigana waxba kuma gaaraya mideeda kale fariya aniga arrimaheeda dhan waan soo ogaaday wax walbana waan ogahay kollay qoftaas marwada ay ka hadlaysa hooyadeeda inay noqoto soo lagama yaabana koley aniga ma ogi laakiin waxaan isdhahayaa hooyadaa le waa fariyaha familkeeda yaa kaloo dhibaateyn karana kollay arrin saxan ayaad sheegaysaa wax walba hooyo ayaan weydiinaynaa soo maahan hadeertaa ma waxaad leedahay hooy aniga waxaas moogeyn naagtaasina aqoon uma lihi war heedha baryaha naagtaada waxay kuu sheegto miyaad aniga iila imaanaysaa ii sheeg ayaan ku dhahay naagtaa sheegays aqoon uma lihi arrintaana beri ayaan ka ahay haddaad doonta boolisku wac hooy aniga wax kale inaad igaga jawaabto maro su'aalahaygoo kale iiga jawaab jogsan adiga aqoon muu leedahay haa ama maya waxba ma xasuustay familkaas aniga aqoon u leh adiga goorme aqoon u yeelata jamiilow kolay waxay ila tahay inaad adiga xasuusato sideen ku xasuusanayaana magaciisa wuxuu ahaay haa waa soo xasuustay anaal ayaa la dhahay si fiicanaan aqaana yaakhi adiga xaaskii ma ilowday waa qofkii hadda ka hor heshiiskaad la gashay markaas adiga heshiiska caadi ayuu kula ahay danka ma lahayn balse ninkaas noloshiisa ayaa ku xidhnayd wax badan ayuu ku bariyey balse adiga waad ka diidday aniga waan xasuustaa ninkaas xaas ayuu lahay gabar yarna way u joogtay gabadha yartana maalintaas gaariga ayay saarneed hey warkaaga inaan maqla ma rabe aniga gurigayga eega bax fiya ka bax gurigayga ka baxa socda marwe waa ku baryaa oo ogolo gabadheeda haddii kale hadhow meel xun ayaa u dambaynaysa marwe gurigayga idiska taga mise booliska ayaan ii wacaa marwe cimraan waa ku baryaa iriddaa naga soo xihan marwe cimraan cimraan heshiiskana maxaad ugu diidday gabar yar ayaad la socota maxaa kugu dhaca adiga jamiil haweyrata wax kaa gala mala arrintaan allah allah goorme gabar iyo gabar darro kale jeclaan jirtan ani aduu asraqaana iskuma dhuumanayne cimraan adiga naxariista bay kaa gootay cimraan mala socotaa reerkaas adigaa burburiyey ninkaas inay dhibaato haysato adiga wuu kuu sheegay waxaas laakiin sideed ku samayn kartaan adiga dad mustaqbalkooda ayaad baabi'isay meesha ayaad taajirnimo ka raadinaysaa soo maa waa aniga shaqadeeda firaa waa maxay shaqadaad ka hadlaysid waa xeer u yaala ganacsatada asxaana layskuma falaan ku dhah wiilkayga haddii aan runtan ii sheego nin walba ninka oo ka lacag badan ah ayuu madaxa ooga istaagaa wax walbana adiga dartiin ayaan u suubiyey aniga xilligaas xaalad adag ayaan ku jiray qof garabkayga istaagaayana ma jirin tan kaleeta ninkaas wuu jilicsan yahay haddii uu isdilaayo muxuu aniga heshiiska iila galaynaa
war xor ayaan ah waxaan doonaa suubina haddaan doonana haddeertan ayaan heshiis kala geli karaa bes hooyo intaa inka badan ma adkaysan karo waan kaa sii tagayaa nacas xun ayaa tahay sidaa doonta u qosol laakiin ballan waa inaan kaa oohiyo run ahaantii hooyadeeda sidaan u malaynaya iyo sida ay haddeertaan noqotay laba ayay kala tahay ilayfe wakhti walba aniga guryaha asxaabteeda markii aan tago waxaan arki jiray wiilasha ficayga sida loo soo dhoweynayo anigana aad baan u xanuunsan jiray xitaa diyaal marxaladaha hadda ay ku sugan tahay markaan arko hooyadeeda ayaan soo xasuusanayaa runtii hooyada waxay ahayd qofka keliya aan ku dayan jiray wakhti walba waa kanaa maantana hooyadee adduunye ayaa beddeshay runtii naxariista xitaa waa ay ka guurtay jacayl kama helno runtii hooyadeeda adduunyadan ayay israacsiisay wayna isbeddeshay laakiin wax walba ay hagaagayaan xabiibi mideeda kale xitaa juuliish waa sida anigoo kaleeto maxaa yeele jecel hooyanima ma arkin waadna arkaysay hooyadeeda siday ula dhaqmaysay laakiin adduunyadan ayaaba sidaan iska ah maalinna way kaa farxisaa maalinna way kaa oysiisaa adiga maxaad qorsheynaysaana inaad samayso waxaan rabaa beritoole fiiraa inaan aniga u tago anna soo raaligeliya khasaaro walba u gaaran aan la qaybsado waan ogahay inay waxay dhaceen dib aysan u soo laawanin laakiin waxaan rabaa inaan cafis weydiisto waxaan rajaynayaa adiga inay ku fahanto sidaas ayaan rajaynayaa baaba halkaa mad joogtaan haa aabbo kaalay soo fariisa halkan tartiib aniga joonishaan sii fiirinaya mahadsanid xabiibti aabbo birta ma kaa qabtaan xoogo may iska dhaaf waa xir kadib waan kacayaa wiilkayga dhegayso hooyadiin inaynii murjiso ma oggolaanay aniga arrintan wax khaladaa ku leedii ma jirto laakiin aabbo waad la socotaa soomaan dad faamil ayaan nahay wax walba ay hooyo samaysa annaga inaan xalinaan ku khasbannahay wiilkii adiga ma ogtahay hooyadaa iyo adiga isku dabeecad ma tihiin xaaskaadna waa qof wanaagsan waad mahadsan tahay aabbo waan ogahay aabba haddaysan ayada ahaan lahayn mala socotaa annaga waxyaabahan haddeertaan dhacay dhan inaanan ogaan lahayn xitaa maanta waxay aadda meesha odayaasha lagu xanaanay waxyaabo badan ayayna halkaas ugu dambayntii ay ka soo ogaatay maskax ayay leedahay nasiib ayaad leedahay xaas fiican ayaa kugu soo aaday waxaa loo baahan yahay amradeed inaad qaadato inaad ka soo horjeedsato looma baahno garabkeeddu waa inaad taagnaataa runtaada way aabbo wiilkayga hadalkeen kugu dheerayn waa sii seexanay qolkaygay kaale waayahay aabba tartiib waxaa loo baahan yahay xaaskaada amradeed inaad qaadato inaad marnaba ka soo horjeedsato looma baahno firaanta hooyada aabbaha iyo jaranjarada ka soo tuurta waxaan u malaynayaa haddana wax walba inay samaysay aabbahaaga disho ku barya aniga guriga waa siqdhexoo habeennimo maxaad u seexan la'adahayna firaad suldaankeyga hubaal wad iga xanaaqsan tahay laakiin xilligaas heshiisyada la gelaya asxaan layskuma suubin jirin anigana xaalad xun ayaan ku jiray adikaanii korinaayey wiilkaygina ay fahantid isku day waan ogahay go'aan ayaan keligay qaatay laakiin kuma khasaarinay waan ku faa'iide maanta heerkaa taagan tahayna ogow aniga ayaa u soo dhabar ardeegay waana guulaystay ugu dambayntii wiilkayga maad ifaantid hooyada ayaan ahay kollay ha isku dayin hooyo waxyaabahaasoo kale aniga inaad ila imaata dembi aad adiga gashayna ma rabo mas-uuliyaddiisi inaan aniga qaato hooyo ilaahay haddartaa maskaxdeeda waxaa ka guuxaya waxyaabo kale inaad iga qarinaysa diin kale waa maxay waxaan qarinaayana ma aqaan laakiin
sida inaad adiga wax aad samaysay aad ku faraxsan tahay qofka aad ku samaysayna uu ka naxsan yahay warka si toosaan kugu sheego waa sida aabahayga markuu xanuunka la dhacayo oo kale hooyo waxyaaba aad qarinaysid ani adiga waan wada hadalnay haddana hal tala ayaan ku siinayaa maskaxdaada buuqa iskaaga furin istarees waa ku baryaa ii naso istareeskana maskaxdaada ka saar go'aan qaada ayaan ku dhihi lahay nolosheeda habeen wanaagsan waan aamini lahay macquul maaha midaan halo albiir firaay ayaan u socdaa inaan la kulmayaan rabaa wayba wanaagsantaaba haddii aad u socoto shirkadda anagana tartamaysa mar labaad ayay wareejin kala sameyn rabaan walaalka shirkad kaleo cusub suuqa ku soo biirta ayay rabaan inay gacanta ku dhigaan boqolkiiba 48 ayaa hadeetaan noqota faa'iidadeenna naagtaas waa inay istaajisaa siduu u dhaqsiyaa badan waa midda keliya aan aniga ka fikiraayo mideeda kale wax yar kadib ayadana u tagaya anaana kuu soo sheegay subax wanaagsan subax la mid la yaasmiin haye soo dhowow fasaxaadana sidoo ahayne beel ayuu ahaa kan ayaan kuu keenay maxaa wayne kasteena aadan u jeclay kuleelna waaye haa hadda ka hor ayaad ii sheegtay soo maahan inaad jeceshahay haddirtan aniga waddada maraa igu soo dhacay saasaan kuugu soo gaday waa maasan tahay adiga mudan caafimaad iigu cun ay hay maxaad sugaysaa qabo orod teleefonkaada ku soo hadan anigana kan aan iska soo cunaa orod maxaad sugaysaa waan kuu soo laabanayaa halo marofarayaa soo hadal maxaa dhac akhbaar maba kaa haayi intii karaankayga aniga waan samaynayaa oo sidee ah micnaha marwe cimraan iyo mudane jamiil haddirtaan way isdagaalsan yihiin mar walbo asiga hadal dhahaana hadalka way ku soo celinaysaa yacnii wax walba uu ka dalbadaa ma samaynayso kolley waxay isku haysteen ayaa jira anigana waxaas waan fahmi laaya laakiin ugu dambayn inaan ka soo gulgaarayaan isku daya inta aad kartid waa inaad samaysaa dadaalkaagana waa inuu bataa daawada gabadhaada waa ka waraysaa maaho iska taxadar markayaahe haa waan fahmay marwo ay gabadheeda joonish fiir base u qurux badan tahay kaali gabadheeda jamiilku aaway way kana haye dhammaantiin diyaaraatiin soomaa nakeena waan bixinaa firaadna aawe firaad shaqo muhiima ayuu leeyahay waana naga daba imaanayaa hay macantadeedana wadhee soo hadal halo marwa mudane firaaja joog ina iskulkulmas rabaa soo gudbi soo dhowo mudane firaad ugu dambayntii si toos ayaanu wada kulannay annagoo wejiyaal kale aan isugu imaanin marwa firaha weji kale aniga kulamaanina imaanin mideeda kale sidaan kuu ahaa oo keliya ayaan haddartaan ku ahay waxaan rabaa dhibaatooyinka adiga lagu geystay inaan aniga raaligelin buuxda aan ka bixiyo uma malaynayo hooyadaa inay kuu sheegtay middaasi horta muhiim maahan waana la socdaa dhibaatooyinka lagu geystay aniga haddartaan waxaan halkaan u imaada mataqaan dhibaato walbo adiga lagu geystay
waana la socdaa adiga khasaaro fara badan in ay hooyadeeda kuu geysatay waxaan rabaa khasaarahaas in aan aniga kula mago oo hadda lacag ayaad isiinaysaan farxad iyo kalgacaylna waad igu beeraysaan miya ma waxay kula tahay waxyaabihii hore inay iga masixi karaan dabeecaddii hooyada oo miiran ayaabad yeelatay maya middaas adiga waad ku qaldan tahay middeeda kale aniga hooyadee umeyki laakiin qofka hooyadeedoo kale iska dhigaayo waa adiga fiiri waddooyin kale ayaa jiro waddooyinkaas kale aan raadsanna haddii kale haddii kale waxaad ogaataa wakhti walba inaan hortaada ka dheeraanaynin adiga cadowgayga ayaa taa sidoo kale reerkaagana waa cadowgayga runtana waxay tahay idil ahaantiinaba cadowgayga inaad tihiin go'aankaaga ugu dambeeyey miya midkan waa hadalkayga ugu dambeeyey dhammaantiinaba waan idin burburinaya inaan idin cafiyana lagama yaaba reerkiinana waan kala geynaa waayahay waan ogolahay kulankan ha ahaado kulankii ugu dambeeye aan wada kulmayno hal midna aan ku xasuusiyey gabadha adiga basaaska ku eed halkan hadda kadib kama shaqayn doonto soodaa miyaad ka wadaa yaaq adigood qaldan tahay 8% faa'iidadaada hadda kadib aniga ayaa lahaa doona middaasna waa inaad ka warraysaa waxaasi muhiima shirkaddeedana sidaas fudud kuma istaagayso kollay hadalka wuu noo soo dhammaaday maalin wanaagsan